halka lagu magacaabo Sputnik V oo Ruushku sameeyay waxa uu shaqeynayaa ilaa mid ka mid ah tallaalada ay sameysay jaamacadda Oxford baaritaan la sheegay in 92% tallaalka tijaabadiisa lagu guuleystay. Tijaabada ay sameysay Janssen ee dalka UK oo kaliya waxaa ka qayb galay 6,000 oo qofood heer caalami ah, 30,000 oo qofood oo tabarucayaal ah. Macadka Wuhan ee Shiinaha ayaa soo saaray waxyaabaha biologiga la xiriira ee shirkadda Snowprab oo macadka cilmi baarista ayaa laga leeyahay dalka Ruushka, waxaana ay wadaan tijaabooyin gabagaba maraya cudurka COVID-19 talaalkiisa. Inkastoo tijaabadaasi ay talaalka ay sameysay shirkadda Shiinaha ee Sinovac ee dalkaasi Brazil, tijaabada laga sameeyay kadib markii ay dhowaan dhowr kiis oo dhibashada talaalka laga keenay dalkaasi Brazil lagu tijaabiyay dadka inta badan cudurka ay ka bogsadeen. Taasi waxay ku xiran tahay halka COVID-19 sida aadka ugu faafo. Talaalka diyaarka noqonaya ee bulshooyinka cudurka sida aadka ugu haleelay ayaa la sheegay inuu soo baxo dhabaadka sanadkan. Dalka UK goobaha laga saadilay noqon karaan kuwa ahmiyadda ugu horeeya la siinayo ee lagu sheegay xarumaha dadka waayeelka ee lagu xanaanayay waliba dalkaasi ku yaalaan, waxaana ku xigi doona xirfadlayaasha caafimaadka dadka da'doodu ay tahay 8 sano jirka. In la helo shirkad iyo warshado waaweyn oo caalami ah ee qabtira baahida talaalka loo qabo si adduunka loogu baahiyo. Eedaa waxay saaran tijaabooyinka la sameeyay ansixiyay waliba talaalkaasi in la isticmaali karo bishii ka hor. Cilmi baarista weli waxay u baahan tahay inay oggolaadaan difaaca talaalka cudurka markuu qofka lagu mudo halka uu leeyahay. Waxaa la sheegay in 67% dadka ku nool dunida ay tahay inay yeeshaan difaac si fudud uga hortagi kara in cudurkan balaayin qof uu ku faafo inta haddii talaalkiisa si wanaagsan loogu shaqeeyo. Balse tallaabooyinka hore loo sameeyay ee taariikhda soo jireenka ee dalka tijaabooyinka dawadaha lagu ogaaday talaalka dadka da'da la siinayo in sidii la rabay u shaqeynin maadaama awoodda difaaca dadka jirka ay aad u liidata. Balse cilmi baarayaashu waxay xaqiijiyeen arrintan inay dib ku ahayn talaalka haatan la tijaabiyay ee fayraska coronavirus-ka. waxaa isa soo taraya warar farxad leh ku saabsan talaalka coronavirus iyadoo tijaabooyinkii lagu guuleystay la shaaciyay. Dadka ku nool wadamada qaarkood waxay u nugul yihiin fayraska, inkastoo xayiraadda dhowaan la soo rogay yihiin kuwa laga hortagayo dadka badan cudurkan inuu ku dhaco. Talaalka waxay jirkeena baaraya sida uu isaga difaaci lahaa coronavirus, isla markaana uu joojin lahaa inuu qofku cudurka ku dhaco ama ugu yaraan dhimashada cudurka sababa uu hoos ugu dhaco, ayaa lagu leeyay baaritaankan marka la sameeyay kadib, sida ay sheegay qaar ka mid ah khubarada iyagoo baaritaanka ku sameeyay talaalkan cudurka COVID-19. Talaalkan noociisu yahay mid cusub oo loo yaqaan RNA ayaa la isticmaalay xaddi aad u yar oo ka mid ah xidid sida cudurka fayraskan. Habkan cusub talaalku u dhisan yahay ayaa mid jira oo ka caawinaya fayraska markuu bilowdo horeba fayraska jirka soo gala inuu la dagaalamo sida uga hortago cudurka inuu jirka ku sii baahintiisa kale. Talaalka RNA weli looma ansixin in dadka loo isticmaalay yeesho waxa horey looga isticmaali jiray dadka daawooyinka heer tijaabaha maraya si loo siiyo. Ilaa 30,000 oo qofood oo tijaabada talaalka qayb ka qaatay halka kala bar dadkaasi talaal ahaan u qaateen marka horeyna in irbad ahaan loo siin jiray. Balse talaalkan Moderna waxa uu kaga duwan yahay kii hore ee labada shirkadood ay soo saareen haddii uu helo qabow gaaraya 20 digrii ilaa 6 bilood oo uu ooli karo talaalkan. Tijaabadan la sameeyay ee talaalka jaamacadda Oxford ayaa lagu ogaaday inay difaac ugu sameeyay dadka da'da ah ee lagu tijaabiyay. 2 toddobaad markii ka soo wareegtay dadka lagu tijaabiyay markii talaalkaasi qaateen waxaa la ogaaday 99% inay cudurka ka gaashaanteen. Talaalkan wuxuu 3 bilood ee hore kaga duwan yahay 3 talaal oo kaga duwan yahay ayaa inuusan u baahnayn in lagu kaydiyo cimilo aad u qabow. Natiijada tijaabooyinkan talaalka